kooxaha Liverpool iyo Arsenal oo hogaaminaya loolanka loogu jiro saxiixa xidig lafdhabar u ah Bournemouth. Liverpool iyo Arsenal ayaa hogaaminaya tartanka loogu jiro saxiixa Anthony Semenyo, kaas oo ay kooxaha Premier League ku loolami doonaan marka uu dhaqan galo qodobkiisa iibka ee 65 milyan bisha Janaayo. Sky Sports ayaa sheegtay in qodobka uu ka kooban yahay 60 milyan lacagta asaasiga ah iyo 5 milyan oo gunooyin ah, balse uu shaqayn doono oo kaliya muddo kooban oo ka mid ah suuqa January. Qodobkan waxaa lagu daray heshiiska cusub ee 5 sano ah ee Semenyo uu Bournemouth u saxiixay xagaagii hore, markii kooxo kale oo badan ay xiiseynayeen saxiixiisa. Inkasta uu Semenyo go'aansaday inuu sii joogo Bournemouth, haddana kooxaha waaweyn sida Arsenal, Liverpool, Manchester City iyo Manchester United ayaa qorsheynaya inay dalab ka gudbiyaan sanadka dambe. Xidiga reer Ghana ayaa xil ciyaareedkan Premier League ka dhaliyay 6 gool, waxaana Bristol City oo ah kooxdiisii hore ay heli doontaa 20% faa'iidada laga helo haddii la iibiyo mustaqbalka. maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ila dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabtan ugu xiran. mahadsanid.